deeqdan oo la gaadhsiiyey 500 qoys oo ah dadkii iyagu ka soo hayaamay deegaanadoodii abaartu saameysay isla markaana ku sugan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Farawayne ayaa la gaadhsiiyey deeqdaasi ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno kamida gudida abaaraha ee heer qaran waxaana ay ka warameen siyaabaha kala duwan ee u gaadhsiiyeen deeqdaasi maanta caawinaynay gudida abaaraha heer qaran aan soo gaadhsiinay lafta Farawayne oo ka tirsan degmada Farawayne raashinka kooban shaqo qoys in sha Allah taala qaybta lagu qaybin doono talafteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa Ilaahay noo suura geliyay maanta halkan aynu raashinka ku qaybino iyadoo loogu talagalay degmada Farawayne kun qoys 500 hore aan ku qaybinay Abaaraha imikana lafta Farawayne aan ku qaybino 150 350 ka harayna aan mar dhow ku qaybin doono in sha Allah taala degmada Farawayne xarunta laftigeeda iyadoo kulli deegaano fara badan ay dadkan qaybsanaya maanta ka yimaadeen oo dad soo guurtaa ay u badan yihiin ama yihiinba dadkaas oo intooda badan ay jihada bari ay ka yimaadeen sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Farawayne Faysal Dheere waxaana uga mahad celiyay gudida abaaraha ee heer qaran deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka soo guurtada ah ee iyagu ku sugan degmada Farawayne geesta kalena waxa tababoodood la gaadhsiiyey deegaano ay ka jirtay biyo la'aan kuwaasi oo hoos yimaada degmada Farawayne waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Farawayne isagoo ka warbixiyay xaaladda biyo la'aanta ee ka jirta deegaanadaasi iyo sidii dadkaasi wax loo gaarsiin lahaa dhinaca abaaraha waa mid ka jirta deegaanka runtii waanu imika calaatuulo mareynay dad soo guurtaa iyo dadkii deegaanka labadaba aanu indheynay taasoo hawshii ku jirnay dhinaca abaaraha oo biyihii ay soo gaarsiiyeen gudida abaaraha qaranku ee ugu jira kareen meelaha aad loogu sii ooban yahay tii caawimadii aan wali xoog u bilaabmin ayaanu ka mid noqoto Sheekh Weynena ila meelaha ka mid noqoto taasoo imika u soo shubnay magaalo Goole Abaaraha ugu soo shubnay Sayla Galbeed Sheekh Molda magaranaysaa tuulooyinka noocaas oo aad loogu ooban yahay waxaan halkan idinku wareejinayaa idinka odayaashii deegaanka gudida abaaruha qaranku biyihii ay soo dhiibtay inaan gaarsiiyo deegaanka lagu ooban yahay tuulooyin ka mid ah oo nasiib u hesheen inaad laba boodood iga guddoontaan si fiicanna u qaybiya wafdi ballaaran baa noo yimid oo sharaf leh degmada Farawayne ka tirsan indhaynaya abaaraha iyo xaaladdu sida yihiin waxa imika halkan nagu wareejiyeen laba boodood oo midna soo gaaray takana noo dambayso si wanaagsan baa nagu guddoon wixii kale magaranaysaa macaawineen oo heli karana in isla si dhaqsiyo ah ay nagu yimaadaan ayaanu fiirsanayna waftiga ballaaran noo yimid ilaahay ka jisaysiyo intaasoo tuulay soo mareen waa tii labiyo 25 inta kale hadhina way marayaan waana ku maadsiin ilaahay baa wax bixiya waxba gacan bilaadan naf malaha haddana laakiin biyo aad baan ugu baahanahay maanta aniga soo guurtadina aad iyo aad baan iskula jilaacnay waa meelaha ugu daran ee abaartu ay aad iyo aad u degal dhigtay waxaan ugu baaqaynaa gudida taakulaynta abaaraha ee heer qaran in dadkan degmada lala soo gaaro biyo iyo baad xamse qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland degmada Farawayne